Ogaalside oo ah channel u heelan in uu abuuro kacdoon aqooneed oo horumariya miskaxda iyo maanka bulshada. Waxa uu idinkugu bishaaraynayaa in aanu soo gudbinay channel cusub oo magaciisu yahay Ogaalside. Adeegan oo ah mid dhegeysi ah, ujeedad aanu u aasaanay channelkan ayaa ah waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jidkaas oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saarto Soomaalidu iyaga oo dhammaystiran. Jidkaas oo ah mid dhegeysi ah. Haddaba channelka Ogaalside wuxuu mar walba idinkugu heelan yahay soo gudbinta buugta duuban oo lagu magacaabo podcast. Waxaa kale oo taas ku dheer in uusan muuqaalku ka qaadan doonin waqti badan oo muuqaaladu ku kooban yihiin 10 ilaa 15. Waxaa ka codsanayaa dhegeyta in aad horumarisi miskaxdaada oo si joogta aad ula socoti hoyga buugata ee Ogaalside. Waxaa intaa ku dheer in aad waqtigaaga dahabiga ah ee muhiimka ku ah in aad kaga faa'iidaysanaysid kobcinta iyo horumarinta naftaada. Fadlan adoo mahadsan channelka soo subscribe garayso muuqaalkana like saar. Mahadsanid. Maantana waxaa bilaabaynaa buug cusub oo kooban oo laakiin aad u faa'iido badan. Magaciisuna waa Haddii dhalinyaranimada la ii celin lahaa maalin uun. Waxaa qoray Asad Daaha waxaana turjumay Cabdiraxmaan Caqiil. Asad Daaha waa qoraa, filin sameeye iyo wariye. Waxa uu ka soo shaqeeyay warbaahinno kala duwan oo ay Al Jazeera ka mid tahay, asiga oo 90meeyadii warbaahinno documentary ah kaga samayn jiray dalalka ay colaadu ka taagneed sida Yugoslavia, Chechnya, Congo iyo Soomaaliya, oo uu 1998 midkana sameeyay documentary ku lifaaqnaa taxanaha Nafadatu Sakhini ee Al Jazeera. Ascad bisha Febraayo ee sanadkan ayuu 67 sano jirsaday. Waxa uuna baahiyey maqaal uu kaga hadlayo haddii dhalinyaranimada loo soo celin lahaa waxa uu samayn lahaa ee uu hadda tabayo. Wuxuu ka warramayaa waayo aragnimo dhalinyaro badan oo in ninka nool anfici doonta. Maqaalka waxaa wada turjumay Axmed Duubow iyo Cabdiraxmaan Caqiil. Waxaa baahisay mareegta Raadreeb. Wuxuu ku bilaabanayaa sidan. Haddii dhalinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun. Waxa aan naftayda habeen iyo maalin ku tababari lahaa ku dhaqanka dhabta ah ee qiritaanka in Alle mooye Alle kale uusan jirin, laa ilaaha illallah. Waxa aan waalidkayga ka dhaxlay shahaadada rumaynta. Kolkii aan weynaadayna waxa aan cusboonaysiiyey iimaankayga, waxaana aragti ahaan xaqiiqsaday in ilaahyada aan u diidannahay in aan caabudo in aysan keliya ahayn kuwa laga sameeyey timirta marka loo fiiriyo aflaamta diinta, bal intaasi ay aad kaga badan yihiin oo annaga nagu hareeraysan yihiin dhan walba. Mararka qaar gudaheenna ayay ku jiraan sanamyo qaab walba iyo midab walba leh. Aragti ahaan waxa aan qirsannahay in Alle mooye ilaah kale uusan jirin. Balse arrinku sidaasi waa uu ka gedisan yahay marka loo eego nolol maalmeedkeenna. Haddii aan ka mid ahaan lahaa culimada, waxa aan diiradda saari lahaa qadiyadani, taas oo maanta igu muuqato mid mudnaan gaar ah leh oo aan ilownay. Waxa ay mudan tahay in cimrigaaga oo idil aad ku bixisid fahankeeda iyo ku dhaqankeeda. Haddii aad u istaagto ku dhaqankeeda, noloshaada oo idil ayaa hagaagayso, waxaadna dareemaysaa micnaha dhabta ee farxadda iyo sacaadada. Alle mooye ilaah kale ma jiro. Naftaada waxay jeceshahay, lacagtaada, hantidaada, hogaamiyahaaga, xisbigaaga, tuuladaada, maamulahaaga, qolada nabadgelyada, iyo ilaahyada kale oo tirada badan ayaan mudnayn in la caabudo. Kuwaasi aan soo sheegnay, midna ha ka cabsan, waxba ha ka rajayn, ha baryin, hana isku qoor xirin. Laa ilaaha illallah bar oo la qabadsii carabkaaga si ay kuugu noqoto falmaalmeed mararka qaar. Ilbriiqsi joogta ah, waxay doontana ha kugu qaadato. Dhab ahaantii waa ay istaahishaa dadaal iyo joogtayn. Waa ismiidaamin halis ah in aysan xubnahaagu samaynin waxa uu carabkaagu qirayo oo ay xaqiiqdaasi dhabta ah bannaanka timaado maalinta xisaabinta qiyaamaha. Waa ismiidaamin halis ah in aad noloshaada ku dhammaysatid sugitaanka inta ay sacbadaadu buuxsamayaan. Ku raaxayso inta aad heli kartid, war uma haysid in aad berrito gaari doontide. 2. Haddii dhalinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun.
aragtida dadka wax tixgelin ah kama aan siiyeen waxa aan samaynayo. Umana aaba yeeleen ammaantooda, aydooda amaba qiimaynta shakhsiyadayda. dabcan haa, si degan ayaan u dhegaysan lahaa ray walba oo mug weyn, mid togan ama taban oo iga duwan, dhammaadkana waxa aan qaadan lahaa sida aan u arko. silsiladan halista ah waxaan ka xorayn lahaa oo aan ka ciribtiri lahaa naftayda, tallaabooyinkayga, qorshahayga iyo gurigayga. kuwa aan sidaasi yeelin islamarkaana aan arkaynin halista arrintu leedahay wakhtiga saxda ah, waxa ay ku baraarugayaan goor dambe oo ay dadoodu weynaatay. asigu waxa uu dibadjoog daran ka dareemayaa ahaanshiyihiisa. waxaa ku hareeraysan goobta uu ku wareegsanayo iyo dhammaan ahwaashiisa. hadeertani asigu ma ahan midka dhabta ah, mana ahan naftiisa, bal asigu waa ayaga. waxa uu asiga u noqday waa natiijooyin ka dhashay sida ay dadka kale wax u arkaan, kuwaas uu u hoggaansamay, si daacad ahna u hirgeliyey. kolkii uu weynaaday wakhtigana uu qof walba wax baray, waxa uu ku baraarugay in ay goor dambe tahay oo ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen. waa ismiidaamin halis ah in noloshaada kula noolaatid mid u xiran aragtida dadka kale, sida ay wax u arkaan, faallooyinkooda, ka cabsanaysid caradooda, kuna farxad gelinayso ammaantooda, oo islamarkaana noloshaadu hagayaan. go'aanadaadana aad ku qaadatid adiga oo arrimahaasi ku salaynayo. haddii dhallinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun, kama aan daali lahayn in aan go'aanadida qaato, aniga oo aan ku andacoonayn in ay duruufta tahay mid aan munaasab ku ahayn. cimriga aan dhulkani ku nool nahay ma lahan xaaladda ku habboon. mar walba waxaa ina la soo gudbanaado caqabado, mushkilado iyo xaalado aan dhammaystirnayn. in la sugo inta ay ka dhammaystirmayaana waa iska ciyaar. waa in howlaheenna ku hirgelinno sida ay duruufto tahay ee taaganta, ee maahan xaaladda ku habboon in aan la suganno. waxa ay ku leeyihiin ha guursan inta aad ka lahaanayso guryo hagaagsan oo dhammaystiran, hanti banki kuu taal, taas oo kuu suurtogelinayso in aad dhigato aroos aad ku faantid, islamarkaana aad ugu yeertid midka kuu dhow iyo kan kaa fog si ay dhammaan u baxaan ayaga oo arooska ammaanayo. dhab ahaantii nolosheenna waan adkaynaa, kadibna waxa aan ku doodnaa in duruufta aysan inoo saamaxaynin. haddii aad haysato shaqo oo aad ka heshid mushaar kugu filan, ku guurso, xitaa haddii uu kuu gaarayo 1 qol oo ijaar ah, kadib xaaladda si aayar ah ayay u soo hagaagaysaa. haddii aad heshid ninkii aad ku haminaysay oo aad isfahmaysaan, haddii adiguna aad heshid gabar xor ka ah caqliyadda caadooyinkii hore iyo dhaqamada taban, oo labadiinana aad leedihiin il dhaqaale, ha ku dayacina noloshiinna sugitaanka loogu yeero xaaladda ku habboon. dhab ahaantii taasi waa xaalad dhalanteed ah, weligeedna aan imaanayn. dhammaan umuuraha kale ee noloshaada tan kaga qiyaas qaado, waxaana dushaada ahaaday ku dhaqaaqida duruufaha suurtogalka ah. waa ismiidaamin halis ah in aad noloshaada ku dhammaysatid sugitaanka inta ay sacbadaadu buuxsamayaan. ku raaxayso inta aad heli kartid, war uma haysid in aad berrito gaari doontide. 4. haddii dhallinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun, waxa aan u noolaan lahaa sida dadka dada ah. ayagu waxba uma aaba yeelaan, dan kama gelaan in ay dadka kale tusiyaan waxa ay ayagu yihiin iyo in ay naftoodu difaacaan. waxa ay ka xoroobeen madaxwareerka la tartamida dadka, waxa ayna nool yihiin taaganta, ayaga oo ka fogaaday in ay ka xanaaqaan wax yar iyo wax weynba. hadalkii ayay ka noogeen, kolkaas ayay aamus door bideen, isdhexgalkiina waa ka daaleen, markaas ayay goonigoosad noqdeen. hurdo dheer ayay qaataan, qalbiga ayayna ka qoslaan, waxa ayna la nool yihiin ilbiriqsigii ay haleelaan taaganta, ayaga oo yaqiinsan in uu yahay wakhtigii ugu dambeeyey. waxa ay ka koreen dareenka xasadnimada iyo nacaybka, waxa ayna doonayaan in ay nabad ku noolaadaan inta noloshooda ka harsan. waa ismiidaamin halis ah in aad dib ka ogaatid in cimrigaaga aad ku dhammaysatay, tamar badanna aad ku bixisay, dagaallo wahmi ah oo aan jirin oo dhib kuu geystay amaba adiga aad ka guulaysatay. 5. haddii dhallinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun, waxaan ka carraabi lahaa dalkayga isla marka aan dugsiga sare dhammeeyo. waxaan u safri lahaa dunida kale si aan u barto wixii aan jeclahay, sidoo kalena aan uga shaqaysto si aan naftayda wax ugu taro.
waxba kama soo qaadayn. Inaan jaamacad wax ka barto ama machad, taas waxay ku xiran tahay waxa aan xiisaynayo in aan ka helo. Xilliyada fasaxa waxbarashadana waxaan qarashkii aan kaydsaday ku bixin lahaa in aan ugu safro meelo cusub si aan daaha uga rogo duni cusub oo iga qarsoonayd iyo dadyow kala duwan. Uma safrayo kaliya baashaal ee waa inaan shakhsiyadayda wax ka beddelaa, wax kalena ka mayraa. Inta safraysa waa ay og yihiin xaqiiqadaas inaad soo laabato adiga oo ka duwan sidii lagu yaqiinay, waa taas haddaad dhex maquurato khatarta iyo tijaabada adag oo aadan ku ekaanin muuqaalada madxafyada, dhismayaasha iyo keynta. Haddii aad raad raacdo qaacidada qur-aanku tilmaamay ee ah ku socda arlada oo u fiirsada, waxaad garan kartaa in mar kasta oo aad meel fog tagto aad u dhowaanayso garashada huwiyadaada iyo qof ahaantaada. Waa haddii la helo shardi ah inaad maskaxdaada ka shaqaysiiso inta aad safarka ku jirto. Waa ismiidaamin halis ah inaad dhimato adiga oo aan ka bixin dalkaaga, adiga oo aan seexan laamiyada iyo jidadka waaweyn, adigoon ka soo shaqayn maqaayadaha iyo warshadaha, adigoon arag dad kaa duwan oo aadan la doodin. 6. Haddii dhallinyaranimo la ii celin lahaa aalin uun, kama labalabeeyeen inaan galo shaqo ama tijaabo aan jeclahay aniga oo ka cabsanayo inaan khalad ku dhaco. Waxaan garwaaqsan lahaa in khaladku ka mid yahay dabciga insaanka. Sidoo kale, dadkii guulaystay gebigood inay soo khaldameen, khaladka ugu weyna uu yahay inaadan qaban wixii aad doonaysay adoo ka cabsi qabo inaad khalad gasho. Waalidiintayda, waalidiintaada iyo waalidiintooda intuba waxbay soo khaldeen, balse khaladka way ka soo gudbeen, kama aysan shalayn, noloshoodiina waa ay sii ambaqaadeen ilaa aynu inaga dunida nimid. Ma qoomameeyo, balse waxbaan khaldaa oo khaldaa, wax badanna waan ka kororsadaa. Waan kufaa oo kacaa sidii ilmo socod barad ah oo kale, waddadana kama weecdo oo waan sii socdaa anoo dhoola caddaynaya nabarada igu yaallana. Waxaan ka soo qaadaa gamuun igu dhacay anigoo ku sugan goobta dagaal. Waa ismiidaamin halis ah inaad hoosta ka gasho guryaha adiga oo ka baqaya inaad khalad ku dhacdo ama guuldarro aad la kulanto, halka dunida oo idil ay dhaqdhaqaaqayso, xitaa unugyadaada waa ay dhaqaaqayaan. 7. Haddii dhallinyaranimo la ii celin lahaa maalin uun, waxaan fiiro gaar ah u yeelan lahaa hadal nin igu yidhi maalin. Anigu mararka qaar waxaan lu dhacaa gef, balse waan ka soo laabtaa aniga oo towbad keenaya mar kale. Taasi waxaa sabab u ah jihaygii aabbahay ku beeray gudahayga. Waa ay ii soo laabataa, waxayna si otomaatig ah igu tilmaantaa waddada. Waxaanse awoodi waayey inaan wiilkayga ku beero jiheeyahaasi oo kale. Jiheeye waxay kaa badbaadinaysaa inaad waddada ku lunto. Waa GPS ka ruuxda, waxa ay kuu soo dirtaa ogeysiisyo notifications ay kugu leedahay waddadaadii hore ku soo laabo. Jahwareerka ka jira magaalooyinka iyo jidadka dhib ma lahan. Waa inaynu mar waliba aan samayno isku day oo aynu guulaysanno. Waa ismiidaamin halis ah inaad dunida ku noolaato jiheeye la'aan. Wareerka nololeed waa khatar aan la iska indhatiri karin. Waxaad leedahay hal fursad oo qura. Waxaa intaa ku eg buugeennii maanta. Fadlan muuqaalka like saar, channelkana soo subscribe saar. Mahadsanid.